xukuumadda somaliland ayaa ka hadashay mowqifkeeda ay ka qaadan doonto lacag 1 milyan ah oo dawladda Soomaaliya sheegtay inay ugu deeqaso dadkii dhawaan ay waxyeeladu soo gaarsiisay duufaantii sagaar ee ku dhafatay xeebaha Somaliland. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland Dr. Saad Cali Shire oo khadka taleefanka ugu waramayay wardag news ayaa sheegay inay Somaliland soo dhaweynayso cid walba oo wax kala qabanaysa dhibaatooyinkii ay kaga tageen duufaanadii sagaar ee dhawaan ka dhacay xeebaha Somaliland. su'aashii wareysay weydiiyay wasiirka ayaa waxay u dhignayd bal hadda inuu nooga waramo mowqifka ay Somaliland ka qaadanayso lacagtaasi wuxuuna yidhi horta way soo dhaweynayna ku cid kasta oo waxay nagala qabanaysaa aafadii inay soo gaadhay duufaankii ka dhacay bishan ka dhacay maxaa la yiraahdaa deegaanadeena xataa deegaanada awdal waana isku dhahaan xusteen kale mooyaane bishii October 2011 markii abaarta ay ka dhacday Soomaaliya weynu u gurmanay waxaanu geynay lacag ilaa $900,000 aynu gudbinay marka waynu soo dhaweynayna waxaan ka saxayaa oo kaliya labada gobol ay taabatay duufaanku taabtay maaha waqooyi galbeed iyo maaha iyo awdal duufaanku wuxuu saameyn ku lahaa laga soo bilaabay Sanaag gobolka Saaxil iyo gobolka Awdal saddexda gobol marka taa wixii ka baxsan runtii waan soo dhaweynayna lacagtaasi markaa wasiir ay sheegeen inay Soomaaliya ugu deeqaso Somaliland oo si toos ah waxay ugu soo wareejinaysaa xukuumadda Somaliland mise dad kale sida dadkii taakuleenta wada kale ayaa lagu wareejinaya lacagta waxay wareejinaysaa guddiga afooyinka ayaa lagu wareejinaya oo inta gacanta ku haysta barnaamijka gargaarka ومهد حسن حسين مهد قيله شبكة عالمية wardag news مقالة هرقيسة.